بسم الله الرحمن الرحيم halkan inaga daawanaysaa muuqaal baahiyaha damqa TV oo fadhigiisa waddanka Talyaaniga ee magaalada Faransa warka jira runka sheeg maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qasaaradii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasoo lala beegsaday qarax gobolka Banaadir marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay gobolka Banaadir kaasoo ahaa mid aad iyo aad u fool xun oo aan ku wanaagsanayn diinta muslimka iyo shibiltaada maanta adduunka ka jirto maxaa yeelay waxaa dhibaato ah nin aan wax ka galabsanin meel fadhiya inaad u tagtid inaad qarxisid aad dishid horta waxaan tacsiyo u diraa dadkii halkaas ku geeriyooday dadkooda ayaan waxaan leenahay ilaahay ha idinka samar siiyo ayagana ilaahigoodii iyo rasuulkeena maxamed allah ku xiriiriyo waxaan leenahay marka kale ama mar labaad waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa kaloon rabaa inaan ka hadlo walaalkay injineer Yarisow oo dhibaato soo aad u culus gaartay maantana loo qaaday waddanka Qatar ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ku soo laabto waddankiisa asigoo caafimaad taam ah ilaahay uu u yaboohay waxaan leenahay Yarisow wuxuu ahaa nin shaqadiisa ku fara adag go'aan u qaato sida ay u arka asiga ama ay ula wanaagsan tahay aniga shakhsi ahaan haddaan ahay Cabdiqaadir Qanjey waxaan ka mid ahay dadka aad iyo aad u dhaliilo hab socodkiisa shaqo taasoo ah inaan aniga u arki jiray sida uu wax u wado shakhsi ahaan inay ila wanaagsaneen waxaa suuragal ah ummadda kale inay ila wanaagsan tahay laakiin aniga waxaan ka mid ahaa dadka aad iyo aad u dhaliilo aad iyo aadna uga hadlo waxaan dhihi lahaa maadaama walaalkay maanta dhaawac u yahay dhaawacna soo gaaray horta ilaahay waxaan uga baryaa asigoo caafimaad qabo inuu waddanka ku soo noqdo aan iska hor nimaado aan is cafinno waa hadday jiraan wax qalad ah ilaahay waxaan uga baryaa inuu caafimaad taam isiiyo laakiin aniga shakhsiyaan ahay haddaan ahay Cabdiqaadir Qanjey aniga walaalkay agtayga horta cafis ayuu ka yahay midda aan iskugu nimidna ma aha wax kale waxay ahayd hab socodka dowladda uu ka mid yahay siday u socoto oon anigii cajibinin oo dad aniga ila mid ahoo kalena ay cajibinin hase ahaatee tii waa layskala yimid waxaa timid dhibaatana mid laysku daya ma aha marka waxaan leeyahay mar koowaad mar labaad ilaahay waddankaada ha kugu soo celiyo adigoo caafimaad qabtid ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa in dhibaatada ku gaartay ay noqoto mid aan saas u sii buurnayn oo xalkeeda ilaahay keeni karo taas markaan ka tago waxaan rabaa inaan u soo noqdo qaraxa meesha ka dhacay waxaa la rabaa qarax meesha ka dhacay in taxliil lagu sameeyo ma aha in la iska yiraahdo naagaa soo gashay way isqarxisay nin baa soo galay waa isqarxiyey aniga dad badan oo gobolka Banaadir ka sheekeynayo hadda ka horna waa arkay haddeerna dad badan ayaa wax ka weydiinay dadka aan wax ka weydiinay waxaa ka mid ah wasiiro waxaa ka mid ah
xildhibaano waxay noo sheegeen inay meeshaas tixsi buubaya xataa uuna geli karin waxay noo sheegeen ayaga oo xasaanad leh mase wasiir ah mase xildhibaan ah galista uu galayo inay ka dhib badan tahay inay madaxweynaha aadaan marka waxaa loo baahan yahay waxa waaye in taxliil lagu sameeyo wixii bal in la qaadaa dhigo say waxaan u dhici karaan waddankan infiltrationo badan ayaa jira waddankan waa lees dhex galay waddankan meeshuu shalay jooga maanta ma joogo maxaa yeelay 2800 oo dabagalka ku fiicnaay oo dadka dabagalo ayaa shaqada laga buriyay waxaa kaloo shaqada laga buriyay dadka sirta wanaagsan ha jiray waxaa jira dad badan inay kasoo goosteen al-shabaab dadkaas waddanka maanta waxay ka hayaan boosaska aad iyo aad ugu wanaagsan kuwaasoo ah kuwa meelaha xogta laga heli karo wax alla wixii la rabo laga samayn karo ani maqalka hadda aan qabo waxay tahay in gobolka banaadir ninka ugu sarreeya ciidamadiisii waxaas haysta inuu yahay ninka soo goostay al-shabaab sida la sheegayo tuulax inuu kasoo goostay al-shabaab sida la sheegayo ninka socdaalka ugu sarreeyo inuu kasoo goostay al-shabaab zakariya wuxuu kasoo goostay al-shabaab waxaa jira dad tiro badan oo al-shabaab ka yimid waddankana sultad fiican ka hayo waxaa la rabaa niisa maanta ma qabto macnaa dadkii infiltration iska ilaali jiray ma qabto dadkii dadka inay dabagalaan soo saaraan wax ay yihiin saas daraaddeed waddankii wuxuu u muuqdaa mid ku sii socdo jid khatar ah waxaa loo kala ordaa doorasho ra-iisul wasaaraha wuxuu iska fadhiyaa dhuusamareeb waa dhowr bil iyo xoogaa waaye waxaan ku dhahay ra-iisul wasaarihii wuxuu rabaa inuu ciidamo halkaas oo ku tababaro iyo ciidamadii oo xamar ka watay iyo ciidamo xagga uu ku tababaray inuu isku darsado oo dhulka asiga deegaanka uu leeyahay oo meel xuraysan aan ka jirin oo rabaa inuu ku xuraysto asigoo dantiisa ay tahay birito doorashada uu geli doono meesha uu kasoo geli lahay inuu hadda diyaarsado saas daraaddeed waxa waaye waddankii wax ugu fadhiyo oo dan ma jirto dhibaatadan muqdisho haysato danta laga leeyahay kaliya waxa waaye in lacagaha laga aruuriyo lacagahaasna lagu maalgeliyo dowladaha kale iyo meelaha dagaalada ka socdaan waxaa kaloo jiro oo dadka inay fahmaan la rabaa magaalada muqdisho waxaa looga baahan yahay kaliya canshuur in laga qaado xoolaha ay leeyihiin kaliya in laga qaado lama ogola in dhagax laga qaado lama ogola in isbitaal loo dhiso lama ogola in iskuul loo dhiso lama ogola in jaamacad loo dhiso lama ogola in danaha ay ayaga leeyihiin la fuliyo danta kaliya in la fuliyo oo la rabo kaliya ay tahay lacagahooda iyo maalkooda in la qaado oo lagu dagaal tago wax kale ma jiraan alora aan u soo laabta marka aan u soo laabto qaraxii shalay dhacay oo ka dhacay gobolka banaadir aniga markaan caqligayga la tashaawuray dad badan oo waddankan joogo aan weydiiyey siday wax u dhaceen iyo sida la sheegayo cid dhahaysa ma jirto meeshaas naag ayaa gashay ayaa isku qarxisay waxaas ma jiraan waxaa loo baahan yahay gobolka wuxuu leeyahay siday ila tahay macnaa kaamirayaashii ugu dambeeyey oo sophisticated ah
oo kala soco karo qofka taleefankiisa meeshaas waxa laga haayay wax laga suubinayo waxa loo baahan yahay qofkan waxa qarxiyay halkoo soo maray cirka kama soo dhicin ma soo dhaxgalin meesha ninkan waxa la rabaa meesha uu soo maray kaamirayaashu ana dib loogu noqdaa haddii kaamirayaasha la damiyay waqtiga la damiyay ayaa la helaa shaqada waqtiga socota ayaa la helaa bakay gaab ayaa ku jiray meesha marka ma aha wax oo basiid ah in laga dhigo wax weyn ma aha dawladda ayaantan waxay baratay wax kasta inay sir ka dhigto ay qariso adduunkan ninka markuu meel isku qarxiyo qofkaas isqarxiya DNA-giisa la qaadaa inuu naag yahay inuu nin yahay meesha uu ka yimid familka uu ku dhig yahay waa la keenaa 5 daqiiqo la keenaa aniga waxaan u filaa Soomaaliya waxaas in loo tababaray ay yaqaanaan maxaa ilaa hadda loo sheegi la yahay qaraxan meesha uu ka yimid meesha uu soo maray qasooqji waa aragteen meesha uu maray iyo codkiisii iyo qayladiisii iyo wixiisii la helay waxaa kaloo jiro dad badan oo noocaas oo kala ah waxaa la rabaa sidii waxa markaan soo qaadanay sida Kenya kale markii la galay hotelka nimanka waa la soo saaray ayagoo ordayaan ayagoo galayaan ayagoo xabad gamayna la keenay markii kaamirayaasha la qaatay maxaa dhacay kaamirayaasha ku jira meesha halkay ka baxeen yaa qaatay micnaha meesha yaala wax waaye meesha waxaa ku dhamaadeen dad barabriisu dhow dad badan ka maqan haddii gobolka uu qarax ka dhaco waxaa la rabaa gobolka hal qolo iskama laha gobolka dad badan ka shaqeeyo aawi dadkan dhintay dadkii la dhimo lahaay inta halkay ka baxeen ammaanka oo intaas dhimatay kaliya ay ayaga usbuucaas u fariisanayaan muxuu yahay alora wax badan ayaa jiro oo u baahan in la soo saaro dawladda in laga yeela ma aha ilaa heerka ay shib tiraado guddiyan u suubinay guddiyan u yeelnay ayaga naftooda la baxsala marka waxa loo baahan yahay wax waaye meeshan waxaan u malaynaa xalane Maraykana joogaan Ingiriiska joogaan Talyaaniga joogo waxa joogaan nin specialistiyaal ah joogaan dad specialistiyaal ah joogaan waxa la rabaa dadka in meesha la geeyo loo fasaxo ay soo saaraan si wax u dhaxeen haddii dawladda taas ayna sameeynin annaga marka waxa noo cad shabaab in lagu orkacsanayo ay shaqada si kale u socoto marka anaga waxaan sugaynaa in la soo saaro habka meeshaas loo galay iyo sida wax u qarxeen aniga shakhsi ahaan waxaan leeyahay wax waaye naag ma galin ninna ma galin waxaa lagu diyaariyey qolka shirka ka dhacaya lagu diyaariyey geedkaasna waxaa lagu dhajiyey kursiga uu fariisanayo kursigaasna waa asiga meesha ku dhow iyo inta u dhoweyd waaye meeshaan intaas ayaa ku dhimatay wax ku gaartay marka waxa loo baahan yahay waaye see qaraxa oo u gudbay war wuxuu leeyahay qarxid wixii controlay dad ay shakeen tixsi xataa ma gali kara leeyahay haa marka oo marka qaraxa u dhacay waa marka wax waaye infiltration ajiro waxa jiro dad madax ah oo meesha ka madax ah oo meeshaas alaabtaas inay soo qaadeen ku sameeyeen waa wax jiro waayo aan la qari kareynin marka dawladda waxa uga fadhinaa in ay kaamirayaashii wixii ka dhacay iyo siday ahayd ay soo saaraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh